kulankana ayaa waxa u dhaxeeyay guddiga gaadiidka iyo qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka kala soo dekada magaalada Muqdisho. gudoomiyaha guddiga gaadiidka baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Cismaan Aadan Dhuubow ayaa waxa uu ka hadlay caqabadaha haysta ganacsatada gaadiidka kala soo dega magaalada Muqdisho iyo sidoo kale canshuuraha laga qaado oo uu sheegay in wada sax aan loo marin. anagoo dareemayna sida adag ee howlaha ay ka ganacsanayaan ay ahayd mid baaxadeeda leh ee kuna dhiirigelinayna markastaba in hawshooda ballaaran حيالي وحنا قلنا هي واحد تاريخي له دكتة عمر بقالها سوق له أبدا سوق له عشورة الجديد والله في دبر لنعة مركي لقى بقى أيضا أنت جبتنا إن واحد ما نقنايا عن كل دقينا كل عن ما حين نقني سوا كل بقى لو حمال sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada kulanka maanta la yeeshay guddiga gaadiidka baarlamaanka ayaa ka hadlay goobta waxaana ay soo dhaweeyeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay gacan ka geysato sidii ganacsatada loogu dhiirigelin lahaa maalgelinta ay ku sameynayaan gudaha dalka. dhinaca kale kulan maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen xubno ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ayaa waxaa looga hadlay dhibaatooyinka burcadbadeedka Soomaalida. la taliyaha madaxweynaha Daahir Geele oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya caqabado ay ka haystaan dhinaca burcadbadeedka iyo maraakiibta shisheeye waxaana uu ku baaqay in burcadbadeedka ay u baahan yihiin in dhaqan celin loo sameeyo. waxaan hubaa oo xaqiiqo ah dad badan oo burcadbadeednimada lagu eedeeyay oon ahayn inay dibadaha ku xiran yihiin amba ha noqoto xaqiisii uusan qeexan karin uusan cadaysan karin abukaatiga ku habboonaayo inuu helin bay'ad oo aan isu miisaanayn oo asaga lagu maxkamadeynayo oo san cimiladeeda garanayn laga qaybihii kale ee kulanka ka qayb galay ayaa iyana waxa ay sheegeen dhibaatada burcadbadeedka ay ku reebeen dadka Soomaalida iyo sidoo kale maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya oo ay sheegeen in danaha Soomaaliya aysan u joogin xeebaha dalka Soomaaliya. Maxamed Cali Axmed Rooraye, Home Cable TV, Muqdisho.